kulantii habboon idil ahaantiin badawadayaal meel weliba waad ka joogtaan daafaha caalamka waa 25 Juun sanada 2025 kusoo dhawaada tabinteennan waanu ku eegi doono macluumaadkii ugu dambeeyay dunida waanu ku eegi doono inta aynu ku guda jirno barnaamijkan waxaanu idin soo baahin doonaa wadamada reer Yurub iyo Mareykanka oo isugu tagaya dowladda wadankaasi Ruushkaasi markaasi awoodooda ay u soo bandhigaan waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaad laga helayo qorshe istiraatiiji ah oo ay markaasi ku dhawaaqeen Dolan ka dhana dowladda wadankaasi Ruushka oo ay ku ballameen waxyaabaha kale ee daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya diyaaradaha Israa'iil oo dhulka dhigay qaybo badan oo ka mid ah Gaza waxaana la tilmaamayaa in weli ay sii soconayaan weerarada Israa'iil ee marinka Gaza ka gadaal weerar lagu hoobtay oo dhawaanahan dhex maraya wadamada Iran iyo sidoo kale Israa'iil waxaana la tilmaamayaa Israa'iil in dagaalka ay u soo weecisay marinka Gaza dad u tiro badan ayaana la tilmaamayaa in halkaasi ay ku dhinteen qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu idin soo baahin doonaa ee daawada haday tahay markaaga kugu horeysay aad halkan soo booqato subscribe noo saar noo la garay muuqaalkan waad ku mahadsantahay soo booqashadaada aanu si aan baqaano warar dheeraad ah ayaa wali ka soo baxaya duqeymaha kala joogsi lahayn oo dowladda wadankaasi Israa'iil ay la beegsanayso goobo istiraatiiji ah oo ku yaala gudaha marinka Gaza talaabadaasi ayaa timid ka gadaal markii gudaha xabad joojin loogu dhawaaqay gudaha labada dowladood oo muddo yarkii ugu dambeeyay si xoogan u dagaalamayay waa Israa'iil iyo sidoo kale dowladda wadankaasi Iran waxa la tilmaamayaa in Iran ay gudaha soo bandhigtay dhaqdhaqaaqyo militari oo culus iyo sidoo kale dhibaatooyin xoogan oo ay ka geysatay gudaha Israa'iil waxa la tilmaamayaa Israa'iil iyada qudheedu inay sii wadayso dagaalkii ka dhanka ah marinka Gaza ee kooxaha iska caabinta Hamas ay halkaas ka wadeen waxaana la tilmaamayaa in sidoo kale ay beegsatay dad shacab ah kuwaasi oo ku sugnaa goob raashin lagu qaybinayay waxaana la tilmaamayaa in ugu yaraan 50 qof halkaasi ay ku dhinteen tira intaas ka sii badan ayaa la tilmaamayaa in dhaawacyo xoogan ay qabaan ka gadaal markii diyaaradaha sida qumaatiga u duulay dowladda wadankaasi Israa'iil ay duqeymo la beegsadeen dad safaf dhaadheer uga jiray raashin goob lagu qaybinayay waxaana la tilmaamayaa in kooxaha gargaarka qudhoodu ay ka qayb qaadanayaan mishinka lagu fulinayo shacabka ku nool daanta galbeed ee Falastiiniyiinta waxaysan noqonaysaa tallaabo culus oo markaasi lala beegsanayo shacabka ku nool marinka Gaza oo ay iska kaashanayaan dhinacyada dagaalka xoogan ee halkaasi ka oogan waxaa la tilmaamayaa in sidoo kale guud ahaanba xabad joojintii ay burtay isla markaana dhinacyadu waxaa la tilmaamayaa inay qaadayaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhinacyada ka dhana talaabadan ayaa timid ka gadaal markii Iran maanta ay shaacisay in guud ahaanba aysan wax dhibaatooyin ay gaarin guud ahaanba kaydkeeda hubka casriga ee nuclear-ka waxaana la tilmaamayaa in hubkeeda casriga ee nuclear-ka uu bad qabo isla markaana goobihii la weeraray wax dhibaato aysan ka dhicin talaabadaasi waxay dhabarka ka toogatay dowladda Mareykanka sirdoonka wadankaasi Mareykanka ayaana si waxay u baahiyeen guud ahaanba in wax dhibaato aysan gaarsiinin guud ahaanba hubkaasi isla markaana uusan burbur gaarin Mareykanka sirdoonkiisu waxa ay sheegeen in ujeedka ugu muhiimsan ay ahayd in xabad joojin lagu qabto dowladda wadankaasi Iran isla markaana lagu qasbo waxa la tilmaamayaa in talaabadaasina ay tahay mid ay ka gungaareen waana talaabo culus ayuu yiri sarkaal sare oo hadlayay dowladda wadankaasi Mareykanka waana talaabo culus oo dhinacyadu ay qaadayaan maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan ay dhinacyadu u soo abaabulayeen waxaana la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyadu ay xoogaysanayaan xiisada ayaana la tilmaamayaa in guud ahaanba markan la soo abmeeray waxaa la tilmaamayaa in Israa'iil ay soo bandhigtay guud ahaanba goobo istiraatiiji ah oo ay beegsatay sidoo kale Mareykanka ayaa la tilmaamayaa isagana in guud ahaanba xiisadu ay mudan tahay markan in la dajiyo guud ahaanba waxa uu sheegay in xabad joojinta loo hogaansamo ciidii markaasina talaabo kale oo dheeri ah qaadana ay la xisaabtami doonaan balse waxa su'aal mudan in guud ahaanba Mareykanka uu la xisaabtamo dadka sharci darrada Israa'iil ay uga laaynayso marinka Gaza halkaasi oo dad aad u tiro badan lagu laayay talaabadaasi waxay u muuqanaysaa guud ahaanba Mareykanka inuu iska dhagatirayo isla markaana indhaha uu ka dadanayo waxa ka soconaya guud ahaanba bariga dhexe gaar ahaan marinka Gaza oo siyaabooyin kala duwan dad shacabihi halkaasi looga laaynayo Mareykanka waxa sidoo kale uu sheegay in Iran ay ku qasbayaan xabad joojinta inay u hoggaansato isla markaana aysan qaadi doonin tallaabooyin ay ku beegsanayso marinka Gaza halkaasi oo ciidamada Israa'iil ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wadaan Mareykankana waxa la tilmaamayaa in tallaabadaasi uu taageerayo Iran waxa ay sidoo kale soo bandhigtay saraakiil sarsare oo ay ku
dishay wararkii ay ka geysatay gudaha wadankaasi Israa'iil iyo saynisyahanno Tirabel kuwaasi oo halkaasi lagu qaarijiyay ka gadaal markii liis dheer ay soo bandhigeen waxay guulo lixaad lahi Iiraan ka sheegteen dagaalkii ay ku weerareen gudaha wadankaasi Israa'iil ka gadaal markii dhulka la dhigay magaalooyinka waaweyn ee Tel Aviv iyo Haifa waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba tallaabadaasi ay tahay mid culus oo dhinacyadu ay qaadayeen muddooyinkii ugu dambeeyay balse dhinacyadu weli kama hadlayaan dhibaatooyinka Israa'iil ay ka geysanayso marinka Gaza halkaasi oo duqeymuhu ay ku sii socdaan daanta galbeed ee wadanka Falastiin waxa ay dhibana u tahay guud ahaanba dowladda wadankaasi Israa'iil oo siyaabooyin kala duwan weerar uga geysanaysa halkaasi kooxaha Xisbullah iyo Xamaas ee marinkaasi ka dagaalama ayaa warinaya in dhibaatooyin xoogan ay ka aloosayaan halkaasi ciidamada Israa'iiliyiinta ay halkaasi ku sugan mana jirta garab markaasi dhinacyadu ay ka helaan si loo xalliyo dhaqdhaqaaqyada xoogan ee halkaasi ka soconaya lama sooga halka uu saldhigan doono wararkan ayaa daawanaysaan ee qaybii dhexe ayaad la socotaan ee markana Mareykanka ayaa mar kale waxa uu beeray xulufo culus kuwaasi oo guud ahaanba ka dhana dowladda Ruushka waxaana la tilmaamayaa in dowladaha wadankaasi guud ahaanba ay ku midoobayaan dalad cusub oo markaasi ujeedka ugu muhiimsan ee markaasi loo aasaasay ay tahay inay ka hortagto guud ahaanba dhaqdhaqaaqa walba oo ay wado dowladda wadankaasi Ruushka waxaana la tilmaamayaa in dowladaha reer Yurub oo ay ugu horeeyaan Faransiiska iyo UK ay soo iibsanayaan hub iyo sanad ciidan oo Tirabel kuwaasi oo guud ahaanba Mareykanka uu ka iibinayo tallaabadaasi ayaa looga gol leeyahay guud ahaan inay isaga caabiyaan dhaqdhaqaaqyada xoogan ee Ruushka uu ka wado halkaasi waxaa la tilmaamayaa in dowladda wadankaasi UK ay soo iibsanayso diyaarad F-35 taasi oo ka hortagaysa guud ahaanba hubka casriga ee nuclear-ka muddo qarni ah isla markaana hawada ku burburin karta waxaa la tilmaamayaa Mareykankana uu ku dhawaaqay in guud ahaanba xulafadan ay yihiin kuwa adag oo markaasi la isaga caabinayo Ruushka waxay noqonaysaa dagaalkii ka dhex xoognaa wadamada Israa'iil iyo sidoo kale Iiraan inuu weecanayo markan wadamada Ruushka iyo Mareykanka waxaana la tilmaamayaa in garabyadu ay xoogaysanayaan shirkaasi waxaa ka soo muuqday Erdogan oo saaxiib dhow la Vladimir Putin waxaana la tilmaamayaa tallaabada ay culus tahay dhinacyaduna waxaa la tilmaamayaa inay qaadayaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo guud ahaanba tallaabooyinkaasi ay uga jawaabayaan maalmihii ugu dambeeyayna siyaabooyin kala duwan ayuu Mareykanka u beerayo xulufooyin cusub kuwaasi oo guud ahaanba meesha ka saari kara tallaabo weliba oo ay dhinacyadan qaadayaan kadib cadaadis kaga yimid Donald J. Trump madaxweynaha wadankaasi Mareykanka wadamada xubinta ka ah NATO ayaa 5% waxa ay ballan qaadeen inay ku biiri doonaan difaaca Yurub taasi oo micnaheedu uu yahay Yurub weyne inay isugu tagayaan guud ahaanba hal quuqati markaasi looga hortago dhaqdhaqaaqyada guud ee Ruushka uu ka wado halkaasi tallaabadan ayaana maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan uga shaqeynayay madaxweynaha wadankaasi Ruushka Vladimir Putin si uu uga hortago waxaa sidoo kale ka shaqeynayay qorshaha NATO uu uga qasbayo guud ahaanba inay u hoggaansamaan tallaabooyinka Mareykanka Donald J. Trump madaxweynaha wadankaasi Ruushka ayaa waxa uu tallaabadan ku tilmaamay inay tahay halistii ugu weyneed ee markaasi Ruushka uu ku jiro waxaana uu tilmaamayaa inay qaadayaan tallaabooyin culus oo ay uga hortagayaan qorshe waliba uu markaasi la doonayo in lagu gacan bidixeeyo awoodda dowladda Ruushka lama sooga tallaabadan iyo halka ay saldhigan doonto guud ahaan intaas ayaan ku soo abmirayaa daawadayaal tan iyo kulan dambe nabadeen